daawadayaal waanu idin salaanay waa Boolimoog Channel oo halkan idinka soo gudbinaya magaalo ka mid ah wadanka China oo ah magaalada ku caan baxday cudurka haatan loo yaqaan COVID-19 ama coronavirus. magaaladan oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 12 milyan oo ku taala dalka China oo la yiraahdo magaalada Wuhan ayaa sida tan idin muuqata haweenaysay muddo hal bil ka badan tan iyo markii uu cudurku sida lixaad kale ugu baahay uguna soo caanbaxay iyadoo uu ahayd xilligii uu bilaabmay cudurkan January balse magaalada tan oo bishii February oo dhan ilaa March aynu ku jirno dabayaaqadeedan ku soo gabagaboobay in cudurkii afjaraan culimada ama dhakhaatiirta dalka China oo xoog saaray hase ahaatee magaaladan oo aad u ahayd mid saxmigeedu badan yahay ayaa waxa ay muddo la daalaa-dhaceysay xanuunka coronavirus ee dunida weerarshay iyadoo oo isugu yimaadeen wax allaale wixii dhakhaatiir xataa ku noolaa wadamada shisheeye ee ka baxsan gudaha dalka China u yimi inay ka qayb qaataan si ay u garab istaagaan walaalahooda Chinese-ka. dowladda China ayaa waxa ay xanuunkan hoos u dhigay dhaqaalaheedii gebi ahaanba haddii noqon lahayd dhinaca isu socodka duulimaadyada iyo tareenada iyo dhinaca diridda alaabaha iyo dhoofinta ay dalka ka dhoofinayeen China oo ah dal aad wax u soo saaro warshado badan ku yaal dhammaan dunida oo dhan la gaarsiiyo badeecadaha uu soo saaro ayaa xanuunkan waxa uu la degay 20% in ka badan dhaqaalaha dalkaasi. China oo ah wadamada ugu waaweyn xagga awood ahaan military iyo teknolojiya ahaan ahna wadamada dhaqaalahoodu uu aadka u sii sareeyo oo sii kobcayo ayaa waxaa moodaa in xanuunkii coronavirus uu aad u saameeyay sida idin muuqata magaalada Wuhan. suuqa faras magaalaheedii gebi ahaanba waa la xiray goobihii socodka waa la xiray meelihii cuntooyinka waa la xiray maqaaxiyihii waaweynaa gebi ahaanba waa la xiray airportadii khasaare lixaad leh kaliya kumuuna dhicin magaaladan Wuhan ee dabcan waxaa ku dhacay Shiin oo dhan. dhakhaatiir caan ah ayuu qudheedu ku dhacay xanuunka oo ka shaqeynayay sidii ay dadka u badbaadin lahaayeen. nasiib darro China waxa uu ahaa dal burburiyay in ka badan 32,000 oo masjid isaga oo muslimiin tiro yar oo dalkaasi ku noolaa cadaadis fara badan ku hayay tan oo bedelkeeda la is oran karo waa carar rabbi ama wax uu alla awoodiisa ah. January 23 ayuu bilaabmay 409 qof ayaa ku dhimatay xilliga January oo qura hase ahaatee way soo tartay oo waxa uu noqday cudurkii mid faraha ka baxay oo aan waxba laga qaban kareynin. waad aragtaan meel walba oo ka mid ah magaalada Wuhan siday u xirneed amaba ay idlaa u ahayd iyadoo oo lagu kala cararay in badan oo magaaladaasi ku noolaana ay uga qaxeen magaalooyinka kale ee dalka China iyagoo isaga cararay kana baqay inuu cudurku gaaro. waad aragtaan sida uu xiray dhakhtarkani waxa uu ahaa dadkii ugu horeeyay oo cudurka saameeyay isagoo oo ku jira badbaadinta dad Chinese ah. nasiib wanaagsan waa uu ka kacay cudurka waad aragtaan isaga oo dib ugu soo noqday shaqadiisii. waxa uu leeyahay cudurka waxa uu calaamadaha uu leeyahay kamida qandho fara badan madax xanuun abateedka oo ka xirma adiga oo aad wareertid ama dhulka oo kula socda oo aad dareentid sida inaad tahay qof anemia ay hayso. haddaba cudurkan coronavirus asarkiisa laga qaado shimbiraha feedmetka loo yaqaan ama xayawaanaadka la cuno ee bini'aadanka u soo shabaha 83 jirkan ayaa waxa uu ka degay in la iska daayo cunida xayawaanaadka soo shabaha bini'aadanka waxaana uu uga digay inay keeni karaan xanuuno khatar ah taasoo maanta caan noqotay oraahdiisii ahayd 83 jirkan isaga oo intan ka yar u iska daaya cunida xayawaanaadka soo shabaha bini'aadanka waxa uuna ahaa xilliga uu ku dhawaaqay arrinta 23 jir. waxa uu leeyahay waan uga digay dad badan oo Chinese ah inay joojiyaan hase ahaatee waa ay ka madax adeegeen oo waa ay sii wadeen waxa maanta Wuhan ka dhacay waa wixii aan ka digay ayuu yiri anigoo 23 jir ah. waase nasiib darro buu yiri in maanta ay ku baraarugto dowladda China oo ay arrinka aan anigu ka hadlay dib u soo qaado waxaan soo oranayaa waa arrin fiican
maadaama ay China cadaadis hadeer saareen in la joojiyo dhammaanba cunista bahasha loo yaqaano fiidmeerta ama Batman iyo waxyaabaha kale ee muuqaalka bini'aadanka soo shabaha. China oo ilaa haddeer cudurkan dawadiisa aan helin ayaa balse waxa uu ku guuleystay in uu xakameeyo amaba uu meesha ka saaro faafidii iyo sidii uu ku socday ama hawligii uu cudurkaasi ku hayay gudaha dalka China ama magaalada Wuhan.